munaasabad ballaaran oo sanad dugsiyeedka dugsiga Hillaacweyne ee degmada Gabiley ka tirsan ayaa maanta si rasmi ah loo furay munaasabada furitaanka dugsiga Hillaacweyne oo ay ka qayb galeen xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka maayir ku-xigeenka degmada Gabiley uqaasha iyo waxgaradka gobolkaasi Gabiley iyo guud ahaanba ururka aayo oo ka shaqeeya arrimaha horumarinta deegaanadaasi waxaana halkaasi ugu horeyn baadla kooban ka jeediyay uqaal iyo waxgarad kale oo guud ahaanba ka hadlay ahmiyada ay leedahay furitaanka dugsigani maayir ku-xigeenka degmada Gabiley Cabdi Yuusuf Koolo hadal kooban halkaasi ka jeediyay ayaa isaguna sidoo kale u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay furitaanka dugsigani ee sanad dugsiyeedkani haday macallin tahay hadii ay waalid tahay iyo hadii ay cuqaal tahay iyo hadii ay waxgarad tahay gaar ahaan dhalinyartan isa soo abaabushay ee ururka aayo waan mahad gaar u celinayo aad iyo aadna ay u mahadsan yihiin maadaama oo ay noo suuro geliyeen inay xafladani suurowdo oo ay ardaydaasi u keenaan jaayisado iyo buugaag kuwii wax lagu baran lahaa baahidooda dabool yahay ay u keenaan oo ay ugu soo deeqaan iyagoo iskood isku xilqaamay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ururka aayo mid kale waxaan leeyahay maxay ahayd waalidiinta ubadkoodu dhigtaan iyo kuwa aanay ubadkoodu dhiganba dugsiga maadaama uu furmay ubadkiina soo qora sida idinka muuqato waxa soo agaasimay ururka aayo oo urur magaranaysa dhalinyarada oo gobolka Gabiley ka jira ururkaas oo arrimaha bulshada ka shaqeeya wax qabado horena soo qabtay jecel insha Allah taala ardayda iyo inuu dhiirigeliyo maadaama ay tahay waxbarashadu waxyaabaha aasaaska nolosha u ah in la dhiirigeliyo la garab istaagana ay tahay laga maarmaan ayaa waxaan insha Allah taala isagoo noqonay wax qabadkii ugu dambeeyay in wax qabad kale noqdo wax qabad barbilow u ah hiigsi fog insha Allah hiigsanino iskuulkan marxalad badan buu soo maray horta waxaan halkan la siiyay boqocadan eega aan iskuulku ku dhisan yahay Mawlid Saleebaan Ismaaciil ilaahay ka jisaaysi isaga cagaar uu noo saaray intaasoo beero hareeraha ka xigtay taba waan weydiisan laakiin ilaahay isagu ku ilhaamiyay abaar xaq ilaahay ku keenay doona alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta waxa dhiganaya boqol dhalinyaro oo waxa yar iyo iskuulka dhiganaya waxaan aad u jecelahay inuu waliba afarta galaas ee ka dhiman iskuulka maaragtay dhexe hoose in loo bajiyo dawladda codsi aan u jeedin macallimiinta halka ardayda isugu keentay ee lafahooda u horay ee in carruurtooda wax baraan uga talagalay arooniyahay boo kalaaya aad baan iyaga ugu mahadnaqayaa waxaan ku baraarujinayaa carruurta iyo ardayda waxay tihiin madaxdii berrito dalka xukumi lahayd ayaa tihiin ku dadaala casharada ninka wax bartaa wuxuu noqdaa madaxda qaranka ee ummadda hogaamisu noqda waxa la yidhi ninkii dadaala xaaji Cabaas waa gaara waana dhaafo haddii la dadaalo dawladuna kolkaa waa lagu dhiirigeliyo ardayda dhigata dugsigan Hillaacweyne oo runtii mudan in la hambaliyeeyo waayo haddii la waayo cid dhiirigelisa dhalinyartan daadadu aadka u yaryar tahay ee weliba meesha baadiyaha degan ee la doonayo inay wax bartaan waxuma baranaya runaantay muruqeena dadaalkeena meel wada jeedina cid waxa laga yaabaa dadka intooda badan negative ka cabashada ka hadlaan taa waa iska reebayna deegaanka waxa ka dardaaraya waxa cabashada ilaa halkaas ka dhigaan laakiin wax wada qabsi aynu u dhaqaano maamulka gobolka Gabiley hadaan nahay waan idin barbar taaganahay waxaanu rajaynaynaa inay idaan Gabiley u doonanin masaafada dheeraanay ilmaha inta laga maanta foor ka baxaya aanu eedka u tagin una laamida wadabtiin dhibaatada wadada inaga haysatana aanu ilmuhu masaafada marin baanu rajaynaynaa sidii aanu fasal kale ugu keen lahayn afarta fasal ee ka dhiman marka eedka inaan afarta fasal ay ku soo biiriyaan waxaan baaq ugu dir lahaa waxa weeye waalidada ardayda dhigtay iskuulka Hillaacweyne waxaan leeyahay waa chance waa fursad maanta waxa jira dad aan haysanin fasaladaas oo kale oo sida ugu dhow oo waxbarashadoodii oo waxa weeye u taga meel ka fog waalidada waxaan leeyahay chance ka faa'iideysta waa Nimcaan Deeg Ibrahim TV-ga qaranka Gabiley.